السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادin salaamay dhamaantiinaba meel walba caalamka joogtaan. Waa anigoo walaalkiina Amiin Xasan ah idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channel-kayga. Haddaad ku cusub tahayna waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saartid, aadan ka hilmaamin inaad taawatid gambaleelka saad ula socotid muuqaalada soo socda. maanta waxaan jeclaystay inaan la wadaago qiso yar, qisadaas oo ah si xaqiiqo ah u dhacday. inta aan qisada aan guda galin waxaan rabaa inaan hordhac yar aan ka dhiibto saad u ogaataan qisada meesha u socoto. qofka bini'aadanka mararka qaar wuxuu sameynayaa qalad yar, qaladkaas oo ah u noqonayso jab aad iyo aad u soo wajahday noloshiisa. haddii noloshiisa oo dhiibo xitaa aanan kasoo kabsan karin jabkaas, oona ka shalaanayo noloshiisii oo idil. waa inaad ogaataa qofka si walba u cararo, meel walba u cararo, laakiin kama carari karo nafsadiisa. sidoo kale inta aan guda galin qisada waxaan rabaa inaan idin caddeeyo magacyaashaan isticmaali doono inaysan ahayn magacyaashooda dhabta ah, balse ay tahay magacyaalo oo aniga iska samaystay si ayaga dhibaato u geysanin. qisadii ayaa sida tani ku bilaabatay. Fatima ayadoo noo sheekeynayso qisadeedii waxay ku bilowday qalad yar aan sameeyay ayaa nolosheedii oo idil ku burburay. meel ayaan gaaray aan garan waayay xitaa meesha aan u socdo iyo meesha aan ka socdo. Fatima ayadoo leh waxay dhahday aniga waxaan ka soo jeedaa reer wanaagsan, nolol wanaagsanna waan ku noolaa. marka waxaan rabay mar inaan jaamacadii aan bilaabo saan u helo shahaadooyin. jaamacadii ayaan bilaabay. jaamacadda markaan bilaabay meesha waxaan la kulmay wiil lagu magacaabo xasan wuxuu ahaa wiil wanaagsan oona jecel inuu dadka caawiyo, wuxuuna ahaa wiil smart ah. ardayda jaamacadda dhigato dhan markay rawaadaan in la caawiyo agtiisa ayay aadi jireen. markaas Fatima ayadoo leh aniga xitaa mara caawitaan u baahday agtiisana ayaan aaday, wuuna i caawiyay. marka waxaan bilaabay marar badan inaan agtiisa aado saan u helo caawitaanka, wuuna i caawi jiray. markaas waan la saaxiibay. markaan la saaxiibay kadib saaxiibtinimadii ayaa waxay isku bedeshay xiriir. qisadii way dheer tahay, laakiin waxaan soo qaadanayaa halaha ugu muhiimsan saa idinku dheeraanin. xiriirkeeni ayaa sii dheeraaday. markuu xiriirkeeni sii dheeraadnay waxaan go'aansanay inaan isguursano. waan isguursanay, nolol farxadna waan ku nooleen. ilaahi subxaanahu wa tacaala sanad kadib waxaan helnay gabar, markaasoo farxadeeni sii ziyaaday, double ayay noqotay. saa u joogno xasan ayaa wuxuu offer ahaan u imaaday shaqo oo Dubai ah. shaqadaas oo aad iyo aad u wanaagsaneed. markaas waxaan dhahay iska bax, dhib ma lahan. xasankii ayaa shaqadii Dubai u aaday. markaas dhahday sanad ayuu iga maqnaa. markuu iga maqnaa waxaan bilaabay inaan aan dareemo cidlo. saa cidladii aan iska baabi'iyo waxaan bilaabay inaan social media aan isticmaalo. saan social mediaha ugu jiray waxaa maalmaha ka mid ah wiil Maxamed la dhaho wuxuu bilaabay inuu Instagram-ka iga message gareeyo oo qoraallo ii soo diro. qoraaladiisa waan arki jiray, laakiin waa iska indhatiri jiray. markaas waxay dhahday si loo joogo cidladii ayaa igu tiro badatay, cidla inaad dareemo ayaan bilaabay. kadib waxaan bilaabay inaan la hadlo Maxamedka saan wada sheekeysanayno waxaan ogaaday inuu yahay wiil engineering ah. markaas saa wada sheekeysanaynay waxayba ila noqotay inuu yahay wiil aan mar horen aan isnaqaano, sanadooyin isnaqaano. waxaana bartay cuntaduu jecel yahay, kalarkoo jecel yahay, meeshoo jecel yahay. waxaa jiraaba waxyaalo qaar oo asiga jecel yahay oo anigana aan jeclahay. isku dooq ayaaba noqonay. marka saan wada sheekeysanayno saaxiibtinimadeeni ayaa dheeraatay. maalin maalmaha ka mid ah Maxamed ayaa wuxuu iga codsaday, markaasoo dhahay maalmo badan ayaa iswada naqaanaa waxaan jeclaystay inaan hal maalin aan soo wada shaaxeeno, aan ku wada sheekeysano si live ah. markaas waxay dhahday aniga waan ka diiday, laakiin Maxamed ayaa igu madax adkaaday. marka waan ogolaaday ultimately. markaas waxaan qorsheenay meesha aan ku wada kulmi lahayn iyo saacadda aan ku wada kulmi lahayn iyo maalinta aan ku wada kulmi lahayn. markaan qorsheenay kadib wuxuu dhahay aniga xagga ayaan kuu sugayaa, waxaana kuu diyaarinayaa surprise aad iyo aad la yaabi doontid. markaas waxay dhahday maalintii ayaa la gaaray, waqtigii ayaa la gaaray. markaas waan isdiyaariyay saan xagga aan u aado aan la kulmo Maxamed. marka meesha aaday waxa aan sugayay iyo waxa aan la kulmay isma lahan. maalintaas ayaa waxay bilaabatay nolosheedii burburitaankeeda.
meesha aan maxamed aan ka sugayay ayaa waxaa iga soo horbaxay xasan ayaa wuxuu iska soo dhigay bilooyin aan la sheekeysanahay inaan maxamed aan u mooday, balse maxamed ma aheene ee waa xasan naftirkii oo ninka i qabo ah. markaasa waxaan bilaabay inaan xasankii aan wixii dhan aan ka dhadhacsiiyo, laakiin aan ka raaligeliyo xasan wax uu maqli waayey. maalintaas kadib nolosheennii waxay noqotay nolol aad u adag, nolol buuq leh. markaasoo waxaa la gaaray meel gabar walba xataa aanan ka fikiraynin, aanan rajeynaynin inay ku dhacdo. xasankii ayaa i furay. qisadii ayaa meesha ku ekaaneynaa. waxaan rabaa inta aanan muuqaalkayga aanan dhammaynin inaan wax yar oo aan ka dhibto, aneen ra'yi yar aan ka dhibto. ogow, qof walba aad social media aad ka aragtid iyo qaabka u aragtid ma ahan xaqiiqadoodana social media kuma soo bandhigaan badankooda. faatma qalad yar ee sameysay awgeed ayaa waxay ku weysay noloshii farxadda badneed ee ku nooleed. ogow, qof walba si wanaagsan oo kula hadla social media ma aha micnaheedu inuu yahay qof wanaagsan. dad qaar ayaa jira markay kula hadlayaan waxay kula hadlayaan si naxariis badan, si kaftan ah, si wanaagsan. markaas adigana waxaad yeelanaysaa caadad ayaa u qaadanaysaa, waxaad jeclaanaysaa inaad mar walba aad la sheekeysatid. markuu kaa tago kadibna waxaa ku dhacaysaa god aadan kasoo baxi karin. ka fiirso qof walba aad la hadlayso social mediaha, ina iska ilaali dadkaas camal. inta aan ku wada kulmi doono muuqaal kale oo sidaan ah, waxaa idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.